goorma dhimana waqtigeyga saacad ma liigu daraayo saacadna ma liiga dhimaayo. Assalaamu calaykum. waxaa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday jilaagii caanka ahaa ee lagu magacaabi jiray Cabdi Muriide Dheere oo ku magac dheeraa Ajakis, kaasoo maalmihii u dambeeyay ku xanuunsanaa isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho. Allah u naxariistay Ajakis oo ahaa shakhsi ay wada garanayaan inta badan bulshada Soomaaliyeed qaasatan dhalinyarada, ayaa maanta u hoyday gurigiisii dhabta ahaa. marxuumka ayaana saacado ka hor lagu aasay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. haddaba barnaamijka waxaan kuugu soo gudbin doonaa taariikhda Cabdi Muriide Ajakis oo maanta ku geeriyooday caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. hase yeeshee sidii caadada inoo ahayd, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta ku xidhan janalka Bajero Official. mahadsanid. allaha u raxmadee. sida aan idinkugu sheegay hurudhaca barnaamijka, waxaa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday Cabdi Muriide Dheere Ajakis, kaasoo ah shakhsi ay wada garanayaan guud ahaan bulshada Soomaaliyeed qaasatan dhalinyarada. waxaana geerida ku timid Allah u naxariistay Ajakis ay qalbiyada ummadda Soomaaliyeed ku noqotay xanuun. sida aad la socotaanba, waxaa isaguna bila ka hor geeriyooday abwaankii caanka ahaa ee lagu magacaabi jiray Ismaaciil Sugulle Sooraan. marxuumka ayaana u geeriyooday cudurka mareenka ah ee COVID-19. sanadan aynu ku guda jirna ee 2021 waa sanad aan u wanaagsanayn bulshada Soomaaliyeed ee jecel madadaalada iyo qosolka. waa sanad ay wada geeriyoodeen laba majaajileyste oo geyiga Soomaalida aad looga jeclaa. allaha u raxmadee jilaaga caanka ah ee maanta ku geeriyooday caasimadda Soomaaliya ee ku magac dheeraa Ajakis ayaa maalmihii u dambeeyay ku xanuunsanaa mid ka mid ah isbitaalada ku yaala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. qaar ka mid ah eheladiisa oo ka warbixiyay markii xanuunka uu soo ritay Ajakis ayaa sheegay in Ajakis bilihii u dambeeyay uu ahaa shakhsi bukaan socda. haddii aan wax yar ka taabanana taariikhda marxuumka, Ajakis wuxuu ahaa shakhsi ku caanbaxay samaynta rubaayadaha ka qosliya bulshada Soomaaliyeed, sidoo kale tarjumidda filimaanta Hindiga ah, kaasoo geyiga Soomaaliyeed aad lagaga daawado. waana mid ka mid ah waxyaabaha uu ku soo caanbaxay marxuum Ajakis oo maanta ku geeriyooday caasimadda Soomaaliya. sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha lagu xusuusan doono marxuumka maanta geeriyooday barnaamijka lagu magacaabo Faaliyaha Qaranka, kaasoo ka baxay Universal TV, kaasoo ay ku xidhnaayeen dad fara badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed. Ajakis ma ahan shakhsi lagu soo koobi karo taariikhdiisa daqiiqado ama saacado, waxayna dadka aadka ugu dhow Ajakis ay sheegeen inuu ahaa shakhsi jecel garab istaagga dhalinyarada Soomaaliyeed ee jecel in ay ku soo biiraan bahda madadaalinta iyo samaynta riwaayadaha. isku soo wada duubo, Ajakis wuxuu ahaa shakhsi mug weyn ku leh bulshada Soomaaliyeed, aadna looga garanayo guud ahaan geyiga ay Soomaalidu degto. goorma dhimana waqtigeyga saacad ma liigu daraayo saacadna ma liiga dhimaayo. waana ku faraxsanahay inaan dhinto sababtoo ah suubanaha salawaatullaahi calayhi yaaba dhintay. allahu baaqi, ilaaha baaqi ee bas. aakhira ninkii laga waayo bini aadamba ma aha kaas. ilaahayaan aaminsanahay inaan dhimanayo, waa ku faraxsanahay. maalinkeyga haddii lii imaado wallaahi anoo khuslaaya dhimanaa anoo khuslaayo. adduunkaa maxaa laga qaadaa? dhibka yaalo, rafaadka yaalo, silaca yaalo, dulmiga yaalo, amba ka neebsahaaba. alxamdulillaah.